hogaamiyayaasha labada isbahaysi ee baarlamaanka Kenya ayaa ku midoobay mooshin ay wadajir u saxiixeen kaasoo ku saabsan dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ee xuduudka badda waxayna mooshinkan u gudbiyeen baarlamaanka Kenya oo ka doodi doona hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaali oo ah siyaasi ka soo jeeda waqooyi bari ee Kenya iyo hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka John Mbadi ayaa mooshinkooda ku xusay in Kenya ay difaacato xuduudkeeda badda iyo qarannimadeeda dhuleed isla markaana muranka kala dhaxeeya Soomaaliya lagu xaliyo qaab goboleed sida IGAD iyo Midowga Afrika wuxuuna mooshinka dawladda Kenya ugu baaqay in ay arrimahan kala heshiiso dawladda Soomaaliya mooshinka qodobada ku jira waxa ugu muhiimsan in Kenya aysan ogolaan dacwadda maxkamadda ICJ taala ayna diido sharcinimada dacwadaasi iyadoona qoraal u qoraysa qaramada midoobay in dawladda Kenya aqoonsan wax walba oo ka soo baxa maxkamadda cadaaladda ee ICJ ayna sharci daro u aragto qaadista dacwadaasi in dawladda Kenya ay waanwaan la gasho dawladda Soomaaliya oo ku saabsan xuduud badeedka labada dal ay isku haystaan in arrintani lagu xaliyo heer goboleed oo ah IGAD iyo Midowga Afrika loona wajaho sida muran xuduudeedka Kenya iyo dalalka kale ee gobolka ka dhaxeeya in dawladda Kenya ay ciidamo u dirto xuduudaheeda si ay u sugaan qarannimada dhuleed ee dalkaasi sida xuduudka badda ee Soomaaliya baarlamaanka Kenya ayaa u midoobay mooshinkan oo arrinta ugu weyn ay tahay in la diido go'aanada laga yaabo in ay ka soo baxaan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyo in Kenya awood ciidan kula wareegto badda ay doonayso in ay Soomaaliya ka qaadato waxayna arrintani imaanaysaa iyadoo ay soo dhawaatay dhageysiga dacwada Kenya iyo Soomaaliya taasoo furmi doonta bartamaha bisha September ee soo socota wixii warar ah ee soo kordha waxa si toos ah ugala socon kartaa channelkeena Sirta Media oo xilli walba u taagan inuu idin soo bandhigo siraha qarsoon